arrintan hadda food security-ga ama food insecurity-ga adduunka ka dhacay arrintii Ukraine ka hor caalamku aad uguma baraarugsaneyn laakiin xilligaas markii qamadigi istaagay waddanka yar ee mushkiladu ka dhacday waxay abuurtay in wadamo ay political turmoil oo mashaakil ay dhacaan qalalaasaad dhacaan cabsi ay jirto wadamadii ay kaydsadeen cuntadoodii wixii ay dhoofin jireen ay diidaan marka arrinta ku saabsan wax soo saarka beeraha siday waddankeena ka ahaan jirtay ama ay ilaa hadda ka tahay waa la soo bandhigay oo GDP-geena aad arkayseen inay 70% inay xatal ka tahay marka iyadoo sidaas inuu muhiimsan ayaa haddana dee tan caalamka hadda timid silaca ama waxa istaraatiijiga silaca istaraatiijiya la yiraahdo ugu muhiimsan waagii hore waxaa la sheegi jiray shidaalka iyo waxyaabo la mid ah laakiin dee wixii dhuunta la marinaya hadii la waayo dee dad isma haystaan arrintaas waxay u baahan tahay marka in caqli badan la geliyo sidaa darteed ayaa waddan kasta oo maanta jooga haddii uu rabo inuu horumarba ka hadlo waxa ugu horeeya uu ka hadlo waxa weeye beeraha wadamadan hadda dhowr waddan oo maalmahan aad loo sheegsheego galbeedka Afrika oo sida Burkina Faso waad aragteen waxa ugu horeeya dadkaas hadda kacaan waa kacaan dad kacaan waaye dhalinyaro kacaan oo wadamadii qabsanayso ku tamarudaysa ama diidaysa siyaabihii hore ay wax u socdeen diidaysa oo raba inay hadday rabaan gadaal meesha ka aadi ma naqaano laakiin hadda aragtidoodu ay ku dhisan tahay dhaqaalaheena aan ka faa'iideysano tabciiyada iyo daba socodka dunida aan ku daba rafaadsanay aan iska dayno annagoo aan waxeena isku wadano dadkaas ama madaxdaasi meesha wax ka bilaabayaan wada aragteen kulligood waxay ka bilaabayaan agriculture-ka ay ka bilaabayaan in dadku wax soo saaraan ay ka bilaabanayaan halkaas ka bilaabayaan durbadiiba Burkina Faso aragteen si bedeshay within 2 years wadankii wax weyn iska bedelay marka inagu waxaynu u baahanahay marka inagoo waliba si og qiimaha ay noo lahaayeen ilaa haddana inoo leeyihiin inaynu focus ka saarno bal dib aan u fiirino arrinta wax soo saarka beeraha gaar ahaan waa run inta la sheegay colaadaha dhibaatay keenaan sideedaba colaada iyo baahidu way isku xiran yihiin labadaas way isku xiran yihiin marka wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' at'amahum alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf way isdaba taagayeen labadaasi hadii uu khawf imaado cabsi timaado ju'na waa gaajo way daba socota meel aan amni ka jirin darag ma taalo meesh hadii amni xumo ay mar dhacdo baahi ka filo waa walaalo labadaas way is agdagayaan abaarihii baa iyaguna dadkii ka xeeyay iyo daadadkii fatahaadihii iyo musiibooyinkii dabiiciga ahaa ayaguna dee buundooyinkii bay gooyeen ogtiin buundooyin waaweyn baa ilaa hadda inaga jaran buundooyinkii bay gooyeen beerihii bay eber ka dhigayaan maxaan ku dhahaa culaysyo badan baa iyagana ka yimid annagoo marka caqabadahaas oo dhan qabna ayaa haddana waxaa jirta caqabad wacyi dhinaca wacyiga ku dhisan oo u baahan shirkanina oo ay la tahay inuu midka aad u focus gareeyay in dhinaca wacyiga la dhiso oo dadkeenu aynu bal dib aynu isu weydiino war maxaa inoogu jira ilaan dadku wax muhiimka ahi waa ganacsatadii war meeshan beerihii waxba ka helaynaa faa'iido ma ku jirtaa siyaasadda dawladdu waxaa waaye in dib loo fiiriyo beerihii in xoog la saaro wax soo saarkii in dawladdu wax kasta oo facilities oo ay samayn karto inay diyaar la tahay oo meesha xoog geliso NTB laga wada qayb qaatay adeeydeen ayaan ka shaqeynay ujeedkuna waxaa weeye ganacsatadii iyo dawladdii iyo beeraleydii oo isla socota inaynu focus gareyno ama xoog saarno wax soo saarkii beeraha taasaan marka xoog saaraynaa waan garan karnaa dadkeena waxay uga shift garoobeen
dhinaca wax soo saarka oo ay wax kale u aadeen. maxaa jira waxaa fudud sideedaba wax soo saarka oo in wax la soo saaro waxaa ka fudud oo ay ganacsatadu ka jecel yihiin dhinaca serviceska inay aadaan. dhinaca adeegyada ayaa fudud, way ka fudud yihiin. marka adeegay isugu wada tageen, adeegii bay isu wada kor buurteen. marka meeshaasay ay maaragtay shilinkii la geliyey, ganacsatadii aaday, markaasaa waxaa dhici karta inay competition adag iyo culays adag ay meesha isku hayaan. waxay ka soo tageen wax soo saarkii iyo beerihii. waxaa laga yaabaa marka inay beerihii iyo wax soo saarkii oo berigii hore dee ay ama amni darro ama laga yaabo inay u baahan yihiin waxoogaa capital ah oo ka culus midka lagu geli karo serviceska mararka qaarkood. jaamacadaha marka jaamacadaad furanayso waxaa aada u fudud inaad iska furato kuliyadaha aan u baahnayn machines aan kaaga baahnayn, wax machine aan kaaga baahnayn, labs aan kaaga baahnayn, macallimiin oo naadira inaad raadiso iyo professors aan kaaga baahnayn. marka inaad education oo weliba aad iska furato iyo shariica wal qaanuun iyo history iyo kuwaasaa kuu fudud. laakiin aad agriculture samayso oo xanaanadii xoolaha samayso oo maxaan ku dhahaa aad caafimaadkiis abuurto oo halkaas aado, waxay u baahan yihiin labs, waxay u baahan yihiin macallimiin maxaan ku dhahaa laga yaabo inaysan available. marka waxaa laga yaaba in costigoodu very high yahay. saas darteed dadku jaamacadu way kasoo gurayaan meesha. marka meel guriga la furo, class laga furo, kuraas la dhigo, macallimiin la helo, that's all, iyo manhajkii oo la helo, intaasaa ku filan. taasay marka jaamacadu ku bilaabaan oo ay furaan. maxaa jira ayadaa fudud, cid walbay furan kartaa, laakiin dhinaca kale lama aadi karo, waa hawl culus. dhinacan ganacsigana waa saas, inuu qofku xawaalad samaysto oo hebel la hadlo oo uu yidhaahdo meel aynu xagga ka samayna anna soo dir, anna waan soo diraya, meel iska fadhiisto dee halowdaasaan isku xidhanno, ayaa ka fudud in la yidhaahdo aynu beer abuurno, aynu geedo tallaalno oo deedna wax ka soo baxaan oo dhinaca ka maraan oo aynu cagafyo samayno oo way taasaa uga fudud. marka qofku dhinacan uu aadaya. marka laakiin sida caadigaa dee ganacsatadu waxay daba socdaan hilaaca faa'iidada ama biriqda faa'iidaday daba socdaane. haddiiba sida wasiir maareeye sheegay ay la yidhi war wixiina keena waxaa waaye waxaa idinka qaadanayaa soo supply gareeya, demandki waa jiraa waana la idinka qaadanaya. waxaan rajaynayaa in hadda xaggaa la aadi doono oo ay dhinaca wax laga faa'iidi doono ayaan rajaynayaa. marka waxaa intaa dheer maanta soomaalida waa dad kooban tiradeenna, dhulkeenna beeraheennuna iyo dhulbeeraleydeenana runtii haddaan beeranno wax soo saarkeennu aad buu u weynaanaya. waxaa ilaahay mahadiya marka dee dunidii oo dhan baa maanta waxay raadinaysaba ah meel wax lagu beerto wax ka soo baxaan. marka wax kasta oo aan beeranno wuxuu tegayaa, waxaynu helaynaa meeshaan u dhoofin lahayn, ciddaan u dhoofin lahayn, faa'iido aad u badanaa ku jirta. marka waxaan ku soo koobayaa hadalka, hawl waad wada joogtaan dadkii khusayso oo dhan, wasaaraddu ay idinku hogaaminayso, hawl culusaa idiin taalla. hawshaasna waxay buddhigo u tahay dhaqaalaheenna, waxay buddhigo u tahay jiritaankeenna iyo mustaqbalkeenna. waxaynu u baahan nahay oo aan ka rabnaa in aad bedeshaan wacyiga. shirkan markii dhammaado